Hi akhyaarta soo dhawaada muuqaalkeen maanta wuxuu ku bilaabanayaa Advia iyo Sofia labadan gabdhood ayaa waxa laga soo ceeriyay iskuulka mid kamid ah waxa loogu soo ceeriyay way soo dahday midda kalena waxay sameysay akhlaaq xumo laakiin labadan gabdhood ayaa waxay lahaayeen xisada biology-ga Advia waxay nacab tahay xisada biology-ga waxayna leedahay qaladka kas ayaa u sameeyay waxaan rabay in banaan ku soo baxo waqti soo qaato dhanka kale Sofia way murugaysaneed sababtoo ah Sofia aabeed uu ku leeyahay woona canaanaya laakiin Advia cid canaanahayso ma jirto waana free isla markii idea Sofia waxay sheegaysaa aabaheeda waxyaabaha ay u sheegi laheeday markuu hadhuti canaananayo laakiin wuxuu soo jeedinaysaa fikir fiican ee ku faraxdo isla markii Sofia aabeed ayaa imaanayo Sofia aabaheed ayay waxay isla soo galayaan gaariga oo watay laakiin Sofia aabaheed aad ay u xanaaqsanay uuna canaananayo wuxuuna dhahayay waxaan kaga soo tagay shaqadayda waxaan u shaqeeyana waa adiga ina wax baratid laakiin isla markii iyadoo hadlila waxay ku jawaabta la ayaa waxa imaanayso Advia isla markii Advia waxay qasaysaa canaantii iyo canaananayo Sofia isla markii waxay iska dhigaysaa qof wax ka qaadanaya Advia qaabkeeda ma qurux badneen waxayna u ekeeday gabar akhlaaq xun waxayna wadatay dhar aad u qaaqaaban laakiin Sofia aabaheeda uu ka yaabaya isla markii Sofia ayaa waxay u sheegayso inuu aabaheeda ka xishooto isla markiina waxay ku leedahay waxaan rabaa inay qaadiin waxayna soo fadhiisanaysaa qaybta gadaale ee gaariga isla markii waxa soo dhaqaaqaya gaarigii Advia waxay u ekeeday iyada dhan qof iska ciyaarayo waxayna ku ciyaaraysay Sofia aabaheeda iyadoo iska dhigaysay qof ay hore isku yaqaaneen camal maalintii ku xigtay waxay isku soo raacayaan Advia iyo Sofia xaafada Sofia isla markii Sofia waxay hor istaagaysaa Advia waxayna u sheegaysaa xaafadan markay galayso inayna ku buuqin ayna sameyn wax rabsho ah waxayna u sheegaysaa hooyadeed oo xanuunsan inay joogto xaafada waxayna ku leedahay xaafadan ha ku buuqin markaad soo gashay guriyaha isla markii waxay hor u soo gali doonaan guriyaha isla markii waxa arki doonto Sofia hooyadeeda markii aragto Sofia hooyadeeda Advia waa qof aad u war badan isla markii Advia waxay ka dhaadhicinaysaa Sofia hooyadeeda inay yihiin laba gabdhood wax bartaan waxayna u sheegaysaa Sofia inay tahay gabar aad u fiican dhanka waxbarashada hooyadeed waxay ka dhaadhicisay isla markii fikradahaas qaldan Sofia hooyadeed way qaadanaysaa fikirkaas habeenkiina waxay seexanaysaa xaafada Sofia subaxdii markii laga soo kacay Advia waxay soo xiranaysaa dhar aad u soo saarayo isla markii waxa arkayo Sofia aabaheeda markuu Sofia aabaheed arko kabaha Advia ayuu wuxuu ka tuurayaa balkoonka markuu ka tuuro kabihii wuxuu ahaay shir isla markii Advia ayaa gacanta ka soo jiidayso gacantiisana waxa ku jirtay lacag waxayna ka qaadanaysaa si qasab ah lacagtii waxayna leedahay waxay ka tuurtay kabihii isla markii Advia waxay soo qaadanaysaa kabihii waxayna dib u xiranaysaa kabihii laga tuuray isla markii waxa uu soo dhacayo telefoon Advia telefonkii iyadu ku hadlayso ayaa waxa la weydiinayaa 16 waxay qabanayso isla markii waxay fiirinaysaa kalendarka waxayna rabtaa inay hore u wado Sofia isla markii kalendarka ay fiiriso waxa uu qornay dhalashada maalinta Sofia isla subaxdii ku xigtay Sofia waxay sameysanaysaa kafee isla markiina waxa ka jawaayo mashiinka kafeega lagu sameeyo isla markii waxa soo galayso Sofia hooyadeeda markay soo gasho Sofia hooyadeeda waxay ku leedahay Sofia adiga inta sameysan lahayd kafeega maxay kuugu sameeysay naagta guri ka shaqeyso oo shaqaalaha ah isla markii waxa soo galayso Advia oo hore isku raacireen Sofia isla markiina markuu aragyo aabaha Sofia wuxuu ku qaylinaa isla markii Sofia hooyadeeda isla markii meesha waxa ka dhacayo dagaal isla markiina way kasoo tagayaan Advia iyo Sofia iyo Advia ayagoo u socdeen iskoolkii ayaa isla markii Advia waxa ku soo dhacay fikirkaas oo ah inay iskoolka maanta ay aasanin laakiin Sofia ayaa wax yar ka diidayso laakiin Advia waxay markasto waabsataa Sofia sababtoo ah way ka weyn tahay iyada waxayna ka jiidaysaa timaha waxayna aasanayaan isla markii meelaha lagu sameeyo tattoo-ga isla markii Advia waxa loo marinayay tattoo waxayna ku weydiinaysaa Sofia in loo marinayo iyada tattoo laakiin Sofia ayaa ka diidayso waxayna u sheegaysaa waxaas in iyada rabin isla markii Advia ay waxa u soo jeedinaysaa fikir ah in tattoo-ga yahay style oo iyada aqoonin waxaas isla markiina waxay ka jiidaysaa timaha isla markii Sofia waxay bilaabaysaa in iskaaga tagto meesha inteena tagin ee albaabka ka bixin Advia ayaa waxay ka codsanaysaa Sofia inay ka bixiso lacagta laakiin Sofia ayaa waxay tahay qof qalbi jilcan way soo noqonaysaa waxayna ka dhiibaysaa lacagta kee lacagta ka dhiibto isla markii Sofia markay baxdo Advia ayaa wax ka sheegayso isla markii laakiin way soo noqonaysaa Sofia waxayna ka qaadanaysaa lacagteeda habeenkii ku xigay Sofia hooyadeeda waxay rabtaa inay isdisho ee iska tuurto dabaqa laakiin isla markii waxa qabanayso Advia oo badbaadinayso Sofia hooyadeeda isla habeenkan iyadoo ka soo baxayso guriga ayaa waxa ka hor imaanaya Sofia aabaheeda markuu ka hor imaado isla markii waxay qabanaysaa gacantiisa waxayna ka dhunkanaysaa gacantiisa maalintii ku xigtay waxa imaanayo ninkan ayaa isla markii albaabka waxa ka furaysa Sofia markay ka furto Sofia ninkan wuxuu sheegayaa in Sofia Christie hotel 16 bisha markay ahayd laakiin waa la soo dhaafay 16 bisha isla markii waxa uu jawaabayso Advia waxaan u sheegaysaa Sofia inay iska juwaalkeeda oo saxnayn ayaanta isla markii Advia waxa fikirkaas ku raacayo Sofia aabaheed Advia waxay soo jeedinaysaa in xafladda dhalashada laga dhigi karo waqti kale isla markiina waxay ka dhiganayaan waqtiga hadda la joogo isla habeenkii waxa la gaaray Sofia dhalashadeeda oo ahayd xafladda Advia waxay u soo labisanaysaa si aan caadi ahayn laakiin waxa ka helayo Advia Sofia aabaheeda isla markaas waxa bilaabanayso in la ciyaaro Advia ayaana waxay u dheelayso si aan
caadi ahayn. laakiin mar kale Sofia aabaheeda wuxuu ka helayaa Advia. isla markii markay soo dhamaatay xafladda waxaa lagu soo noqonayaa xaafadda. isla markii xaafadda la yimaado waxaa isku dhaganay Advia iyo Sofia aabaheeda. isla markiina waxaa lagu shidayaa guriga nalkiisa waxaana ku shidaysa oo arkayso Sofia hooyadeeda. isla markii Sofia hooyadeeda ewel way xanuunsaneeday way si xanuunsanaysaa waxayna noqonaysaa qof aan dhaqaaqi karin. isla markii iyadoo seexdo oo kor joogo Sofia aabaheeda ayaa waxaa imaanayso Advia oo wado cabitaan. Sofia hooyadeeda dharkeeda ayay wadatay waxayna ka qaadatay guriga. isla markii waxay u dhiibaysaa cabitaankii ay isla markii ridaysaa Sofia hooyadeeda. isla markiina waxaa soo gurbinayo Sofia aabaheeda. maalintii ku xigtay sheekada waxaa maqlayso Sofia ayaa isla markii waxay ku qaylinaysaa Advia waxayna u sheegaysaa inay ka fogaato aabaheeda waxayna si xun u qaylinaysaa Adviana ma ahan mid u jawaabto iyada markaas. maalintii ku xigtay Advia waxay u imaanaysaa Sofia aabaheeda waxayna u sheegaysaa iyada in xaafadda laga xumeeyay. isla markiina waxay iskaga tegaysaa meeshii. isla markii waxaa gaariga kasoo daba qaadayo Sofia aabaheeda. gaarigii ayuuna soo saaraya wuxuuna u sheegayaa inay ka raali noqoto wax walbo. isla markii waxaa meesha ka dhacayso inay isku soo dhawaadaan Advia iyo Sofia aabaheeda. habeenkii ku xigay Sofia oo tumayso piano ayaa waxaa lasoo gargaraacaya albaab. isla markii albaabka furtani waxay arkaysaa Advia oo albaabka taagan. Advia waxay raaligelinaysaa Sofia waxayna leedahay mar dambo ma sameynayo qalad aabahana uma soo dhawaanayo. isla markii Sofia ayaa iska cafinayso waxayna ogtahay gabartan inay kasoo jeedo famil faqiiriin ah markastana way caawisaa wayna garab taagan tahay iyada. maalintii ku xigtay Sofia hooyadeeda waa mid stress qabta iyada waxayna jeceshahay mar walba inay iska tuurto dabaqa. laakiin isla markii Advia ayaa u imaanayso waxayna u sheegaysaa iyada inayna isdilin. isla habeenkii ku xigay Advia waxay seexanaysaa xaafadda Sofia waxayna la seexanaysaa sariirta Sofia. isla habeenkaas Sofia waxay u sheegaysaa Advia wax walba waxayna u sheegaysaa hooyadeeda inay tahay qof xanuunsan waxayna u sheegaysaa inay ka leexato aabaheeda. waxay u sheegaysaa iyada inay hooyadeeda jeceshahay waxayna u sheegaysaa hooyadeeda inay xanuunsan tahay qof xanuunsan ay tahay waxaan markay aragtani xanuunka ugu sii darayo. isla subaxii ku xigay waxay furaha kasoo xadayaan Sofia hooyadeeda. isla markiina Advia ay waxay leedahay gaariga aniga wadi aqaano waxayna soo xadeen gaariga furihiisa waxayna kasoo xadeen Sofia hooyadeeda. gaarigan waxaa iskale Sofia hooyadeeda. isla markii labada gabdhood way israacayaan waxayna isku raacayaan magaalada waxaana gaariga kaxeynaysa oo wadaysay Advia. isla markii labada gabdhood waxaa dhex marayso doodaas oo ku saabsaneeday Sofia hooyadeeda. isla markii waxayna u sheegaysaa inay ka fogaato aabaheeda. laakiin isla markii gaarigii hal mar ay waxay ku dhufanayaan gate. isla markiina labada gabdhood waxay shirku galayaan halkaas. isla markii Sofia ayaa waxay heeday dhaawac aad u daran laakiin Advia way ka fiicneed iyada. Adviana waxay iskaga tegaysaa isla markii meeshii. Sofia waxaa loo qaaday cisbitaalkana waxaa kusoo booqanaya aabaheeda. laakiin aabaheeda ayaa waxay u sheegaysaa gaariga Advia ay waday waxayna u sheegaysaa furaha gaariga inay kasoo xaday Sofia hooyadeeda. isla markii uu aamin weynaa Sofia aabaheeda. isla habeenkaas waxaa cisbitaalka kasoo fakanayso Sofia markay cisbitaalka kasoo fakato habeenkaas waxaa dhacay roob aad u daran. isla markii ay guriga imaato markay soo fuuso jarjarta waxay arkaysaa Advia iyo aabaheed oo isku dhagan. isla markii Sofia way cararaysaa. isla markii waxaa ka daba carari maagahay Sofia aabaheeda ayaa isla markii wuxuu ku dhacayo jaranjarta wuu soo qabo wayna ka fakanaysaa Sofia. isla markii Sofia aabaheeda wuu soo noqonaya wuxuuna u soo noqonaya Advia. isla markii Advia xabadkeeda ayuu wuxuu ku arkayaa dhaawacaas oo ah isteeriga gaariga. isla markii wuxuu ogaanayaa waxay sheegaysa Sofia inay yihiin wax saxan ee kasoo xaday furaha gaariga Sofia hooyadeeda. isla markii xanaaqaya markuu ku xanaaqo kabacdi Advia ayaa waxay ka bixinayso raaligelin arintaas. isla habeenkaas Advia waxay soo xirinaysaa Sofia hooyadeeda dharka jiifka ee xirato waxayna soo qaadanaysaa kabaheeda waxayna jilaysay actionka ay jisho iyada. isla markii waxay iska dhigaysay Sofia hooyadeeda waxayna fuulaysaa dabaqa meesha ugu sareyso. isla markii waxaa guriga markaas ku jiro oo ku dhuumaalaysanayay Sofia ayaa isla markii arkayso wayna qabanaysaa laakiin waxay u sheegaysaa iyada inay dhex bixi weysay familkan. isla markiina waxay ka tuuraysaa meesha. Advia ayaa dhulka kusoo dhacayso meeshaasna waxaa ku dhimanayso Advia. filimkeena maanta wuxuu ku egyahay halkaas. waa qiso xanuun badan filimka maanta. haddaa jeceshahay inaad soo badino filimada noocyadan camal ah oo qisooyinka ah fadlan muuqaalka like saar janalkan subscribe noo saar. aad ayaa u mahadsan tahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.